waxaan aad uga xunnahay dagaalka soo noqnoqday ee u dhaxeeya labada beelood oo walaalaha ah kana dhacay gobolka Hiiraan khaasatan deegaanka Deefo dagaalkaas oo ah runtii mid dad walaalo ah oo isku deegaan ah dhex maray soo noqnoqday mar walbana dhibaato ay meeshaasi ka dhacdo waxaan aad uga xunnahay xukuumad ahaan una tacsiyeynaynaa dadkii meeshaas ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay labadaba runtii arrintaasi waa arrin aan ka muujinnay murugo aan rabno inaan wax ka qabanno dowladduna diyaar maanta ay u tahay inay arrintaas wax dhab ah ay ka qabato waxaan u baaqaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee halkaas wada degan ee dagaalku ka dhaxeeyo inay dagaalkaas joojiyaan oo ay ku bedeshaan nabad iyo wada hadal insha Allah wayna ku dhammaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa oo kale inaan la socodsiiyo waxaa maanta shiray golihii wasiirada qayb ka mid ah kana shiray arrintaas iyada ah waxaana soo saarnay guddi arrintaas wax ka qabta go'aamada guddigaasna waxaa ka mid ah in marka hore meesha la geeyo ciidankaas oo ah ciidan amisom ah oo kala dhex gala dadka dagaalamaya kadibna si dhab ah loo galo oo qorshe iyo nidaam iyo cadaalad intaba la isugu geeyo meeshaas waxaana jecelnahay in arrintaasi ay dhammaan doonto sida ugu dhaqsiyaha badan guddiga maanta la magacaabay wuxuu uga howlgeli doonaa sidii wax loo qaban lahaa arrintaasna waxaan jecelnahay inay guul ku dhammaan doonto walaalaha iyaga Soomaaliyeed walaalaha iyaga dariska ah ee meeshaas ku dagaalamayna waxay noqon doontaa mid ay ku heshiiyaan waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadka deegaanka Hiiraan degan waa dad walaalo ah inay ka qayb qaataan heshiiskaas iyo dhibaatada jirta intuba inay dhammaato inay u guutadaan inay isbeddel muujiyaan gacanna ku siiyaan guddigaas golaha wasiirada ee meeshaas tegi doona iyo inta kale oo ka qayb qaadanaysa cid kasta oo nabadda Hiiraan jecel arrintaas inay ka qayb qaadato ayaan meeshaasna dagaalka ka socda uu dhammaado insha Allah hay-adaha samafalka iyo inta gurmadka iyo degdega ka qayb qaadato oo dhan waxaan jecelnahay iyaguna inay si degdega arrintaas uga qayb qaataan oo ayna meeshaas ay ka howlgalaan insha Allah gabagabadii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan in guddiga iyo dadka ay u tegi doonaan intuba ay arrintaas xalliyaan waxna ka qabtaan waana mahadsantihiin